السلام عليكم. inaad fahanto macnaha dhabta ah ee adduunka waxay ka dhigan tahay inaad yaratay hadafka saxda ah ee adduunyadan dhidibada loogu taagay. qisooyinka ama sheekooyinka waa qayb muhiim ah oo kugu garabsiin karta inaad fahantid kuna cibro qaadatid macnahooda. kusoo dhawaada sheeko gaaban taasoo lagu cabiray adduunyadan iyo waxa ay tahay. waxaa meel kasoo tislay ama kasoo dhacay in yar oo malab ah, dhulka ayuuna kusoo dhacay. isla markiiba waxaa isha ku dhifatay quraanjo yar oo meesha ka agdhoweyd. kadibna waxay usoo dhaqaaqday bartii uu malabka kusoo dhacay si ay u hubsato waxa uu yahay. markii ay dhadhamisay ayay dareentay macaantiisa, kadibna mar labaad ayay dhadhamisay. waxayna istiri bal gurigaaga u qaado, balse taa way awoodi weysay. haddana waxay istiri intaas way kugu filan tahay ee isaga tag. balse macaanta malabka uu lahaa aawgii way soo rogaal codisay. waxayna go'aansatay in ay macaankaas isaga dhex noolaato oo ay iska cunto kuna dhex rafato maadaama ay hooygeedii u qaadi kari weysay. in yar kadib ayaa quraanjadii waxaa qabsatay arrin cajiib ah. waxay kusoo baraarugtay iyadoo si lama filaan ah ku noqotay maxbuus aan meelna u dhaqaaqi karin. sababtoo ah waxaa adimaheedii yaryaraa ku dhegay malabkii wayna dhaqaaqi weysay. ugu dambayn meeshii ayay ku dhimatay quraanjadii yareed ee uu kadiyey dhadhanka macaanka uu malabka lahaa. danteedii way seegtay, macaankii malabkana kamay bogan, rafaadna way u dhimatay. adduunyadu waxay la mid tahay sida malabkaas, dadkuna waxay la mid yihiin sida quraanjadaas. ciddii istiraada macaanka adduunyada ka bogo waxay maxbuus u noqonaysaa adduunyada. ugu dambaynna rafaad ayay u dhimanaysaa iyadoo aan danaheedii gaarin, macaankiina aan helin. ciddiisa uga kaaftoonta dhadhanka koowaad ama ka labaad way ka badbaadi doontaa xabsigaas. waxaan filayaa inaad fahanteen biyo dhaca sheekada. mahadsanideen.